kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Fagaare Production. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa xilka ka qaaday wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan. xogtii ugu dambeysay khilaafka Axmed Madoobe iyo wasiir Janan ayaan idin hayaa. wararkan ka helayno magaalada Mandheera waxay sheegayaan in Cabdirashiid Janan oo wata 11 gaari oo nooca dagaalka ah oo halkaasi goordhow ka soo baxay waxa uu ku sii jeedaa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Doolow. sidoo kale taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasiin ayaa goordhow ka duulay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxa uuna ku sii jeedaa degmada Doolow ee gobolka Gedo. Fahad Yaasiin ayaa soo dhaweyn doona wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. wararkaasi oo dhan ayaan idin hayaa ka hor intaan u gudagelin muuqaalkeena like saar si uu dad badan u gaaro sidoo kalena la wadaag asxaabtaada. haddii aan ku bilaabo wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa laga dhexshaday dab ugu dambeyn sababay in xilka laga qaado wasiir Janan. khilaafka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa si rasmi ah u soo iftiimay shalay waxaana weli socda dadaalo wasiir Janan lagu geenayo Beled Xaawo. ilo lagu kalsoon yahay ayaa Fagaare u xaqiijiyay in Cabdirashiid Janan uu heshiis la galay dowladda Soomaaliya oo ay kala dhaxaysay dagaal iyadoo la og yahay in wasiir Janan dhowr mar ciidamo ka tirsan dowladda uu dagaal kula galay Beled Xaawo. xubno ku dhow wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan villa Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa xaqiijiyay inuu jiro wada hadal isla markaana meel wanaagsan uu marayo inkastoo warar hadda aan helayno ay sheegayaan in wasiir Janan uu heshiis la galay dowladda federaalka isla markaana saacadaha soo socda uu tagi doono magaalada Beled Xaawo. maanta oo Arbaca ah ayaa la filayaa inay heshiiso kala saxiixdaan wasiir Janan iyo dowladda Soomaaliya. sidoo kale saacadaha soo socda ayaa la filayaa in wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan uu gaaro magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. dhinaca kale xogo aan hadda helayno waxay sheegayaan in agaasimaha hay'adda Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu goordhow ka baxay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde waxa uuna ku sii jeedaa degmada Doolow ee gobolka Gedo halkaasi oo lagu wado in uu kaga sii gudbo Beled Xaawo waxa uuna halkaasi uga hortagi doonaa Cabdirashiid Janan oo heshiis la gaaray dowladda federaalka. Fahad Yaasiin ayaa soo dhaweyn doona wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo hadda heshiis la saxiixday dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale wararkan ka helayno magaalada Mandheera ayaa sheegaya in Cabdirashiid Janan oo wata 11 gaari oo nooca dagaalka uu ka soo baxay magaaladaasi Mandheera waxa uuna ku sii jeedaa Beled Xaawo iyo Doolow halkaasina waxa uga hortagi doona wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo uu hogaaminayo taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yaasiin. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan kadib markii uu shaaciyay inuu wada hadal la galay dowladda federaalka. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe ayaa lagu shaaciyay xilka qaadista lagu sameeyay Janan oo ciidamo ku haysta duleedka Beled Xaawo. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa uu xilka ka qaaday Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan. wasiirkii amniga Jubbaland ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe. digreetada xilka qaadista ee uu soo saaray madaxweynaha Jubbaland laguma cadeynin sababta xilka looga qaaday wasiir Janan oo kamid ahaa wasiirada ugu dhawaa Axmed Madoobe. arrintan ayaa ku soo aadaysa saacado kadib markii uu soo shacbaxay wada hadal u socda dowladda dhexe iyo Janan iyada oo wakiilo ka kala socda labada dhinac ay yeesheen kulamo lagu heshiisiinayo dowladda federaalka iyo Cabdirashiid Janan. si kastaba tallaabadan ayaa uga sii daraysa khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda iyadoo Axmed Madoobe uu weyn doono guud ahaan gobolka Gedo haddii uu si rasmi ah Janan ula heshiiyo dowladda federaalka Soomaaliya inkastoo heshiiskaasi uu dhacay mar hore. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa muddo 2 toddobaad ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoona uga qayb galaya shir looga hadlayo doorashada kaasi oo u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. inkastoo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Puntland ay diideen inay ka qayb galaan shir looga hadlayo doorashada. wixii ku soo kordha khilaafkan iyo wada hadallada u socda Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo qabanqaabada soo dhaweynta wasiirkii hore ee amniga Jubbaland halkan ayaad kala socon doontaan. waa maasan tahay wararkii ugu dambeeyay saaka gobolka Gedo waxa uu ku waabariistay diyaar garowga ee wafdi ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ka imaanayo iyo sidoo kale soo dhiibista wasiirka amniga Jubbaland ee Cabdirashiid Janan oo deganaa gudaha magaalada Mandheera oo xuduud beenaad la degmada Beled Xaawo oo maalmihii iyo saacadihii ugu dambeeyay si aad loo hadalay in dowladda federaalka iyo isagaba ay heshiis wada gaareen
hubka iyo gaadiidka uu watana uu ku wareejin doono ciidan dowladda federaalka ah. diyaargarowga degmada Beled Xaawo ka socda saakay aroortii hore waxaa xadudbeenaadka Mandheere iyo Beled Xaawo u dhaxeeya laga soo qaaday qoysaska wasiirka oo gudaha Mandheere deganaa kadib markii ay ka qaxeen markii dowladda federaalka ah deegaanada Doolow iyo Beled Xaawo ay la wareegtay goob magaalada Beled Xaawo ah baa la dejiyay wasiirka xaaskiisa iyo sidoo kale dad ehelaa oo aad ugu dhow oo laga soo gudbiyay magaalada Mandheere. sidoo kale ciidamada dowladda waxay xireen xadudbeenaadka magaalada Mandheere iyo Beled Xaawo u dhaxeeyo. magaalada Beled Xaawo waxaa laga dareemayaa diyaargarow xoogan oo loogu jiro wafdiga dowladda iyo sidoo kale soo dhaweynta ciidamada wasiirka garabkiisa ah iyo sidoo kale wasiirka soo dhibistiisa. wararkunta waxay ku darayaan in wafdiga dowladda uu ku jiro taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin, wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha lugta Dhoore, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale. ujeedkooduna uu yahay in la dhameystiro heshiiska dowladda ay wada gaareen iyo sidoo kale Cabdirashiid Janan. heshiiska dhameystirkiisa maanta dhacaya waa sababta wafdiga taliyaha nisa uu hogaaminayo ugu soo baxeen gobolka Gedo qaasatan degmada Beled Xaawo. waxaana heshiiska lagu dhameystirayaa baa la xaqiijiyay sida ila kala duwan ii sheegeen tuulo Najax la dhaho oo degmada Beled Xaawo duleedkeeda. halkaas ay wafdiga dowladda tagi doonaan kadibna Cabdirashiid iyo ciidamadiisu sida hadda ila kala duwan ii xaqiijiyaan waxay ka soo guureen xeradii gudaha Kenya ay deganaayeen waxayna imaan doonaan tuuladaas Najax. halkaas ayaa lagu dhameystiri doonaa qodobada heshiiska waxaana kadib loo soo gudbin doonaa degmada Beled Xaawo. ciidamada iyo gaadiidka waxay ku hari doonaan sida wararku sheegayaan degmada Beled Xaawo, laakiin wafdiga waxaa soo raaci doona saraakiil iyo sidoo kale wasiirka amniga Jubbaland. dhinaca kale warqad baa ka soo baxday maamulka Jubbaland oo lagu sheegay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu xilkii ka qaaday wasiirka amniga Jubbaland. wasiirka amniga Jubbaland awoodda ugu badan ee Jubbaland saamigeedu ku lahaa wuxuu ahaa gobolka Gedo. gobolka Gedo siyaasiga ugu miisaanka culus Jubbaland saaxada siyaasadda ku matalo. haddana weli waxa uu wataa gaadiidkiisii iyo ciidamadii ka amar qaadanayay guud ahaan uu la soo gelayaa inkastoo ay ka hareen ciidamo laga kala keenay degmooyinka Ceelwaaq iyo Dhobley oo dib ugu laabteen deegaanadooda. laakiin hadda asaga gacanta wuxuu ku hayaa ciidamadii iyo gaadiidka uu ku xukumay deegaanada daawo lagu magacaabo sida degmada Beled Xaawo, Doolow iyo Luuq oo ah ciidan ilaa 400-500 lagu qiyaasay, gaadiid ilaa 14 gaadiid dagaal ah iyo baabuur raaxada sida gaari proof oo asagu si gaar ah u leeyahay. intaba gacantu waa uu ku haystaa waana waxyaabaha dowladda ay kula gorgortantay isaga. Jelaniyo gobolka ku sugan tahay xaaladdan waa la socotaa. waxaa jira dhanka kale marka laga tago heshiiskan oo dowladda kula jiro Cabdirashiid Janan in khilaaf uu soo kala dhaxgalay isaga iyo madaxweynaha Jubbaland. marka khilaafkaasi ilaa haatan ma lugsoon yahay. mudooyinka ugu dambeeyay dagaal 2 bilood ka dhacay degmada Beled Xaawo kadib si aad waxa loo hadalay in Cabdirashiid iyo madaxweynaha Jubbaland ay isku fiicneen. waxyaabaha ugu badan ee khilaafkooda uu ka bilowday waxa la sheegay inay ahay dhaqaalo Cabdirashiid uu ka rabay madaxweynaha oo ah inuu ku kabo ciidanka halkaas joogo iyo sidoo kale saanad ciidan. maalmihii ugu dambeeyay waxa si aad lagu kala fikir duwanaaday gaadiid dagaal oo degmada Kismaayo ama magaalada Kismaayo laga dejiyay oo madaxweynaha Jubbaland halkaasi dekada looga soo dejiyay oo Cabdirashiid uu dalbaday in gaadiidkaasi qayb kamid ah loo soo wareejiyo oo loo keeno halka uu hadda ku sugnaa gudaha magaalada Mandheere xero ciidan uu ku lahaa. laakiin madaxweynaha Jubbaland uu diiday. khilaafyadaasi iyo kuwa kale oo soo taray mudooyinka ugu dambeeyay baa sabab leeyahay in Cabdirashiid go'aan Jubbaland aysan loo ogeyn, madaxweynaha Jubbaland uusan loo ogeyn oo keligii uu qaatay uu la galay dowladda federaalka Soomaaliya. haddana Allah filayo in la dhameystiro heshiiskiisa. dadka Gedo ku sugan inta badan oo ay ka soo horjeedaan maamulka Jubbaland oo banaanbaxyo dhowr ah ayaa ka dhacay degmooyinka kala duwan ee gobolka Gedo oo ay ku diiday yihiin in Axmed Madoobe uu taliyo. marka arintan iyaga sidee u arkaan marka eegtid guuxa dadweynaha in Cabdirashiid Janan wasiirkii amniga ee ugu awoodda badnaa maamulka gaar ahaan gobolka u qaabilsanaa inuu dowladda isku soo dhiibo. dadka deegaanku aad bay u soo dhaweynayaan wasiirka inuu soo dhiibo. degmada Beled Xaawo kale mudooyinka ugu dambeeyay waxay ahayd magaalo colaad saameyn ballaaran ku yeelatay. cabsi xoogan laga qabi jiray in wasiirku mar labaad dagaal uu ku soo qaado walow dagaalkii 2 bilood ka hor dhacay uu dad shacab ku dhinteen, guryo lagu duqeeyay, ciidamo fara badan oo labada dhinac ay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray. marka dadka deegaanka waxay leeyihiin gobolka Gedo wixii hadda ka dambeeya wax colaad ah kama jirayso. dowladda federaalka ah siyaasadeeda oo kaliya ka shaqeynayso. haddii Jubbaland la heshiinayana dadka Gedo oo iyo siyaasiyiintooda oo wada midaysan baa Jubbaland heshiis gaar la geli doono. laakiin ma jiri doonto in farumo ciidan ama siyaasiyiin iyo ciidamo taabacsan maamulka Jubbaland gobolka qayb kamid ay kaga sugnaadaan ama inay weerar ku soo qaadaan laga cabsi qabo.
wuxuu ahaa Jiilaani Xuseen Ciid oo awri ku sugan gobolka Gado wuxuu iga waramayay wararkii ugu dambeeyay ee gobolkaasi iyo sida looga hadalhayo soo dhaweynta wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan kaas oo la sheegay in uu dhanka dawladda ku soo biirayo waxaana jirta in xilka qaadis uu ku sameeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe oo la sheegay in muddooyinkii dambe uu khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo wasiirkiisii hore ee amniga Cabdirashiid